kadib markii gaari lagu dhuftay xilli ay maraysay waddada Morse Road. gaariga gabadha Soomaaliyeed jiray ayaa la sheegay inuu lahaa askari ka mid ah booliiska magaalada Columbus, Ohio. askariga ayaa lagu eedeynayaa dilka ka sokow in uu wax gargaar ah u fidinin gabadhan Soomaalida, hase yeeshee taa beddelkeedii barta uu iskaga cararay. qaar ka mid ah ehelka gabadha iyo weliba waalidka gabadha ayaa shir jaraa'id ku qabtay xarunta Soomaalida ee magaalada tan ee Columbus, Ohio. waxaa dhacday maalinta Arbacada ahayd habeenkeedii in gabar Soomaaliyeed uu gaariga dilay, isla mar ahaantaasna gaarigii uu ka cararay. kadib markii baaris lagu sameeyeyna ay noqotay waxa gabadha dilay nin booliis ah, taas oo runtii ahayd wax lala yaabo. haddana waxaa kaloo dhacday inaan haba yaraatee lala soo xiriirin hooyo. haddana waxaa kaloo dhacday inaan haba yaraatee lala soo xiriirin hooyadii iyo aabbihii. sida caadiga waddanka Mareykanka markuu qof dhinto, booliisku waxay helaan ID-ga ama fingerprint baa laga qaadaa oo waxaa la yiraahdaa faraha laga qaadaa, waxaana la raadiyaa gurigooda iyo meesha uu ku nool yahay. arrinkaasi ma dhicinin. maanta oo axada oo laga joogo 5 beri 6 berina haba yaraatee booliis ama qof kale ama qof official oo la soo xiriiray aabihii iyo hooyada gabadha dhalay ma jiro. Assalaamu calaykum, magacaygu waxa la Ramla Jaamac, waxaan ahay habaryarteed, waxaan u baahanahay xaqeeda inaan helno, in laga tago inta la dardaro laga tago xaq ma ah, mana qaadan karo, mana sameyn karo. waxaan u baahanahay xaq inaan helno. qofkii sharciga hayay hadduu asaga wax dardaray kan sharciga hayn muxuu sameynayaa? su'aashaas waxay u taalaa dawladda. qofkii booliiska ahaa oo dadka tigidhka siinaya wax kala reebay hadduu asaga dadka dilay intuu ka cararay haddana uusan qirayn oo lawyer qabsaday, muxuu lawyerka u qabsaday? intaa kadib waxaa saxaafadda la hadlay waalidka gabadha. anigoo Mahdi Cabdiraxmaan Jaamac, aabbana uu ahaa gabadha Naciimo Cabdiraxmaan Jaamac la yiraahdo, oo uu dilay ninka booliiska kana cararay. waxaan u sheegayaa booliiska Soomaaliyeed, booliiska Mareykanka, waxaan u sheegayaa sida ugu dhaqsiinaha badan inay maxkamadii ugu soo saaraan gacan ku dhiglaha, oo inuu banaanka wareega maaha, qalad buu sameeyey. haddiina booliiska raalli ka ahayn gabadhayda ninkii dilay gacan ku dhiglaha inaad maxkamad dhaqso igu soo saartaan baan iga codsanayaa haddiina ninku raalli ka ahayn. intaas waa intaas. midda kaloo ii raacda waxaa weeye gabadhaydu way xanuunsatay, laakiin waagi hore intaysa xanuunsan ilaa dugsi hoose ilaa dugsi sare yay ka baxday, jaamacad bay aaday. gabadhaydu gabar waxay ahayd Columbus, Ohio ka bilowday iskuulka dhigaar kii ugu hooseeyey ilaa jaamacad ka gaartay. way iga xanuunsatay, xanuunkaasna ilaahay baa u keenay qadartaas, ma garatay. kabacdina waan la dadaalay calaa kulli xaal inuu ninkaasi dilo bay qadarteeda ahayd. marka gabadheeda waxaan codsanayaa ninkii dilay in maxkamad sida ugu dhaqsiinaha badan la igu soo saaro. waxaan ahay anigu Naciimo Cabdiraxmaan, hooyadeed baan ahay. gabadhaydana nin official oo dalka iyo dadkaba mas'uul ka ahaa ayaa gabadhayda dilay, wuuna ka cararay weliba. qaababkay u dhaamatay iyo meelihii laga soo qaaday kolley waxaa og dadkii soo qaaday iyo dawladdu intaba niyada way ka arkeen. waxaan kaliya doonayaa gabadhayda xaqeedii in muxaadara nin booliis ah, nin dalka iyo dadkaba ka gabadhaydina qaaqari isaguna banaanka uu joogana xaq uma lihin. السلام عليكم umada Soomaaliyeed waa salaamaya salaanta islaamka aynu salaamaya salaan kadib magacayga Faaxmad Kaan la dhahaa waxaan la dhashtay gabadhi dhimatay Allah u naxariisto inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun walaashayga yar bay ahayd Naciimo Cabdiraxmaan baa la dhahaa Allah ya raxmaan raxiim ma soo noqonayso ilaahi u naxariisto waxaan maanta isugu imaanay xaquuqdeeda in la helo. we just here to get justice inaan xaquuqdeeda la helno. maalin walba dhibaatada way nagu dhacdaa, mana noogu midii horeena maahan midii ugu dambeysana maahan, laakiin insha Allah ilaahay masiibada socota dhinaca naga mariyo. xaqna waa u baahanahay, xaqii walaashay waa u baahanahay. nin waxaa dilay askari ah
nimanka askarigii markuu dirina waa ka cararay dadkii dhan oo waxa waaye siriga u shaqaynayay baa waxaan sameynayo marka insha Allah ilaahay waxaan ka baryaa xaqeeda sida ugu dhaqsaha badan inuu u soo baxo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maxaa u tacsiyeynaa maanta gabadheena oo ku dhimatay baawurka ku dilay hit and run Columbus Ohio intersectionka Morris and Walford habeenkii aan jeclahay around 2 am insha Allah gabadheena maxaan duugnay Friday-da marka meesha hadda maxaa u imaanay community centerka inta cadaalad u raadino inta justice u raadino inta qofkii oo ka gadarnay oo gabadhan dilay ama wuxuu yahay ama hadduu askari yahay hadduu yahay regular citizen maxaa rabnaa inta noola soo dhigo wixii oo ay hayaan Columbus Police maxaa rabnaa mayorka maxaa rabnaa city officialka maxaa rabnaa dadka oo magaaladan ka wada duqa magaalada iyo dadkan oo magaalada oo xukumaan intay cadaalad ma siiyaan ASAP because markii 2021kii 22gii waa wada ogeedeen George Floyd Columbus maxay promise gareeyeen intay transparency wixii dhaco wixii khalad dhaco intay dadka la socodsiiyaan haddana u jeedin markuu imaamkeen dhimteen markuu haddana gabadhan ay dhimatay waa waxay noo sheegaan ma leh ilaa anaga u tagno indhaha faraha ka gelino inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun qaas ahaan waxaan salaamayaa jaaliyadda Columbus ee magaalada Columbus Ohio waxaan markii koobaad si qaas ugu tacsiyanayaa familka ay gabadhaas walaasheen sooda ay ka dhimatay ilaahay waxa waaye akhrijir ajnabaha u naxariisto familkana samir iimaan Allah ka siiyo waxaan kaloo u tacsiyanayaa jaaliyadda Columbus waxa habeenkii arbacada ahayd gabadha Soomaaliyeed ee walaasheen ah oo gaari ku dhuftay askari kamid ah askarta magaalada Columbus oo off duty ah sida ogtidiinba waa ogtidiin boolisku markay qof dilaan waxay isku diyaarin inay ka fargarayaan ama ay qariyaan ama dadka ay lugooyaan ama ay daaliyaan haddaanu Soomaalinahay wadankan ba ku noolnahay anagu dad muslim ah hadana dad madmadow ah waadna la socotaan dadka madowga dhibaatada wadankan ay kula jiraan marka waxaan u baahanahay cadaalad si aan ku heli lahayn waxaan ka codsanayaa jaaliyadda Columbus inay soo baxaan haddii uu mudaaraad dhacayo haddii siriga la tagayo iyo wax kasto oo lagaaga baahan yahay waa inaad ku caawisaan haday maal noqoto haday xog noqoto iyo haday waqtiga noqoto waa marka la isku baahan yahay haddii bari adiga ay qof walaalkaaga wax ku dhacaan waad ooynaysaa waan rabtaa in lagu caawiyo adigana hadda waxa laga yaabaa inaad baashaalayso ama AC uu ku daaray marka fadlan familka walaalaheena iyo gabadhan walaashana qof kasta ku dhici karta aan u imaano aan caawino magaalada Columbus aan ka codsano aan cadaaladin haddii kale adiga bari kugu dhacaysa walaalkaaga ku dhacaysa walaashaaba ku dhacaysa la dhahaa waxaan rabnay inaan u helno justice abay naciimo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto qabrigeeda ilaahay u waasixiyo inta waxaa ugu dareynaa tacsiyo dhammaan intii ay ka dhimatay annagana way naga dhimatay gabar walaasheen waaye as Somali community waxa u baahanaa in isku imaano in askarab istaagno markasta waa dhahnaa laakiin kuma camal falno waxaan rabnaa meesha isku imaanay inaan gabadhanada u helo cadaalad waxaan rabnaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku nool Columbus Ohio inay ka wada dhiidhiyaan waxaan aaminsanahay haddii laga aamuso inaan iyaguna aysan wax dhaqdhaqaaq aysan suubinayn laakiin haddii arkaan community-geeni oo isku xidhan inagoo Soomaalida inuu ka dhidhinna waxaan aaminsanahay inay dhaqdhaqaaq muujinayaan ninka dambiyada geystay ma ahan dambigiisii u horeysay shilal hore uu waxa jiray involve ku ahaa ama haddii noqoto 2015kii haddii noqoto 2016kii haddii noqoto 2020kii iyo haddii noqoto 2021kii markii ay noqoto 2016kii mar uu dambiga geystay waxaa lagu xukumay 180 cisho in shaqada laga cayriyay marka mar haddii uu qofku yahay qof caado u leh dambiyeedkan oo hore u soo galay waxa weeyaan waxaan rabnaa in sida ugu dhaqsiyaha badan gabadhanadii ay u hesho xuquuqdeeda waxa weeyaan waxaa laga sii xumaada waxa ah qof inta la dilay meesha laga orday haddana boolisku aysan la soo xiriirin muxuu ahaay familka aysan u sheegin sida ay waxa ahaayeen aysan xataa yani bilaadanimada aysan dhihin gabadhiiniba san wax ku dhacday muxuu ahaay saa u ogaada marka haddii noqoto booliska Columbus waxyaalo badan bay ku feelgaroobeen waxaan haddii aan nahay community-ga Soomaaliyeedna waan ka dhiidhiyanaa oo waxa weeyaan waa mid aan aad uga wada xunnahay waa mid aan muxuu ahaay aanan ka gaabinayn ilaa inta ay cadaalad ka helayso gabadhanada